الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله شرفت الأوصى مع الملكز joogta waa idin salaami oo walaalkiin macal Usmaan run ahaantii shalay waxaad u ogeydeen hospitaalka iyo daradiitii ka horeysay alxamdulilah maanta oo taariikh 28 bishii 2019 waa ka soo baxay hospitaalka waana fiicanahay alxamdulilah run ahaantii dhiigkarkii aan qabiyo 2019 ku dhacay oo hore kugu sheegay wax badan buu wataa dhiigkarka alxamdulilah wadnaha ayaa mataqaanaa culays laga saaray hoos ay xanuunaysay alxamdulilah kulley hadda waxay yiraahdeen daawadana waa ku kordhinaynaa waxaa kaloo kaa rabnaa mataqaanaa inaad dietkaada iyo noloshaada bedeshid exercise fara badan aad suubisid markaan walaalaha sharafta leh horta exerciseka diinteena islaam waxay ka qabtaan diinteena saa taqaanaan macaan nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam wuxuuna yiri asoo ka hadlaya wanaag ay leedahay Aisha xadiidka ay warisay waa taqaanaan رضي الله عنها وحيثه يعني خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره النبي صلى الله عليه وسلم لما حيتري سفردي سقاركوت أنا يودت كلا فربضا وإسرعني النبي صلى الله عليه وسلم مركان نحن مري نودي هيه تذكويره يعني تقدموا وحيري بالنوك هذه ويارينا ما أنت ويارينا وحمد الله بينا أرض بالله من أكسايس واي النبي صلى الله عليه وسلم هو يرى عايشة رضي الله بينا هيه soo istaag waa soo istaagay ayadana soo istaagtay marka ordka la bilaabay marka fagac hal meel la orday ana Aisha waxay tiri marka sida gabar yar oo ma sha Allah hilib saarnaa ahayd sidiisa buf aan hal ku dhafay Nabi sallallahu alayhi wasallam de Muhammadin waa laga reeyay waa aqbalay marka waxay rusugay abaar rusugay marka la baxnay hay dadku yiri taqaddamu dadkii ku yiri Nabi sallallahu dadkii la socday waa kabar gaasuu ku leeyahay waa yaarina ordan bilaabina soo imaana dadkii baa imaaday tiri waa istaagnay labadaanagi waa bilownay tiri radiyallahu anha ka bacdina nabiga sallallahu alayhi wasallam waa iga hormaray tribkan bufbo tribkan igu dhaafay markii nabiga waa qusli yani sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri hadii bitilka tani waxay u dhigantaa tii waagi iga reynaysa inta Aisha marka muhiimka ay leedahay waad arkaysaa walaalaha sharafta leh riyaadada iyo exercise-ka diinteena sharafta ay ku leedahay laakiin annaga waxaad moodaaba qarniga horena kuma noolin qarnigan hadda dadka exercise-ka ee masiin kuma noolin ay rono waxaan ku noolaan umaleynaa ku kulaan aniga iga bilow marka waad arkaysaa hadda hospitaalka warkaas hospitaalkii haddaan alxamdulilah banaanka ka imaaday mataqaana liftigaasaan ka soo degay ilaahay mahad iyo shukr iskale dad kale hadda labada waad arkaysaan marka maxaa loo baahan yahay الله سبحانه وتعالى ما هي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وروحها حقيقة وإنكم سجنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ده يشوح عن إنك ضيتها إكسايس كوا سنة وونات هذا ضد كيسة وعليا ومركز ده الإكسايس أنا عروت أما وجينه أما أروتنه أما إنكم بتسوق يارنه أما بنتق أنا أن هانتي أن صوت دبالنه ولي بدت كان أنا جمعت علماء أول درانه واحد أمسي واحد وقت لبس إنهيته وقت لبس معها وسنة وعي أو النبي صلى الله عليه وسلم سناتي الله سبحانه وتعالى نوير وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين هذه إلهي أطيع نبي يسن أطيع هذا جو ستان صومها نبي يدر دوشيز وحاو هذه يعني جاهين عد أيها هاتي maxaa kamid ah sunnada haddan ku sheegay kamid ah riyaadada iyo mataqaanaa socodka iyo orotanka iyo kubadda iyo caafimaadkaada ku jiro ayaa kamid ah walaalaha sharafta leh marka weliba waxaan u digayaa culimadeena weliba macallimiin dugsiyaasha aad baan run ahaantii annagu aan cunaa hilibka waa taqaanaan hilibka aad baan u taqaanaa weyga hadda igu horeysay run ahaantii ay ugu dambeysaan rabaa meel baan qur-aanka soo akhrinayay dee hilib solon oo maasha allah oo kaal iska arag gabar soomaali karta midayn karta adi dam baan isku siiyey war in adeeryaal hilibkan iska yarayno hilibka waa run ahaantii mataqaanaa waa waxyaalaha dhibaatada u keena caafimaadka weliba qofka dhiig karka qaba sideed oo kale iska ilaaliya hilibka waxaa kaloo oo la yaabanahay baalahan tagawaygan ku dhimanay chicken and chips waxaasaan ku dhimanay taa lafteeda haddaad iska daan karta iska daa walaalow macaan markaan looma baahno inaad naftaada halaagtid walaa tulquu biaydiikum ila tahluka yani maaha drugs iyo waxyaalahaas keli maaha waxaa kamid ah waxyaalahan junk food ood cunayso taas waa midda kale waxa waaye waxaan u digayaa gabdhaheena Soomaaliyeed oo carruurta tagaway u soo gaday cunugaada ka nax tagawaygan faraha badan oo baagarka maartay inta la eg
oo dab la siinayo magacayaaba ula baxeenba chicken ribs iyo chicken legs iyo chicken tandoori iyo mataqaana chicken nuggets iyo waaba kale nooc adii waaba jecel yihiin carruurta marka unuga waa unug yar waxba kale ogo laakiin adigaasaa lagaa raba anigaana lagaa rabaa inaan kontrolno walaalaha sharafta leh nabigeena sugan sa anagoo ku dayanayna markaan africa markaan joognay waxaa waaye macalimiinta qur-aanka markaan akrinayaan laggaa la siin jiray lagga laakiin waxaad ogta macalinkaasi meel qorax uu jooga la kasto cununa wax weyn kama qaadayso inkastoo laftooda inay iska yareynaya habboon tahay waad arkaysa ninka taajirka africa oo kale markuu halkaas tago walaalaha sharafta leh caloosha intaa la eg laakiin waa caafimaad qabaa waxaa waaye socodka yeelaya orodka yeelaya qofka caafimaad buu leeyahay marka annagu laakiin waxaasay ma lihin markaan annaga dadka qurbaha jooga waxaan gudigaya haddaanay London joogaa run ahaantii maalin alla geliyo cuntadaas macaan oo dee aad moodaysa inay macaan tahay ayaan ka helnaaba marka fadlan waa idin barya arrintaas ha la iska yareeyo haddii la deyn karana kumulida ha la iska daayo mataqaanaa ilaahay subxaanahu watacaala ummadeena ha ka dhigo kuwii xoog leh oo sharaf leh almu'minu alqawiyu khayrun min almu'min aldaciif soo maha وفي كل خير نبينا صلى الله عليه وسلم ساسويري يعني مؤمن كقوي وحوج له أيها كخير بل مؤمن كضعيف لكن لما أنت تخير بكو جرويري مركب حنوبة هناي ورشيكن كاليسكي إلى عليه ومتقنا تشيكن تندوري كاليسكي إلى عليه وباجر كان فرابنا كاليسكي إلى عليه وعافمات هذا كفكر وإكسايز كصوبي معلمين ضدك سياشة ولا القرآن الحمد لله ضدك أباهيين ضدك لما دي كرت الموقت أنا بل فيش هالي دياري ما دي كرت الموقت waxaas oo kale ma dhihi kartid dadoo dad oo ku yeerto waaye laakiin ma taqaana ummadda Soomaaliya sharaf badan marka hilibka lagu horkeen iyo aan sidii oo kale ha ku dagin iska ilaali barakallahu fiikum jazakumullahu khayr jazaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh